السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا ونكسن داوديال مeel kastoo daafaha caalamka ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamij qiso ah barnaamijkaasi oo aad u xiiso badan isla markaasina aad kaga bogan doontaan qiso aad u cajiib oo ka dhacday dalka Jarmalka qisadani ayaa waxa ay ku dhacday gabadh u dhalatay dalka Jarmalka gabadhaasi ayaa waxa ay markaliya si kadis u qaadatay diinta Islaamka iyadoo markii hore haysatay diinta Kiristaanka maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa ay soo aaday suuqa si ay markaasi ay wax uga soo iibsato ama si ay uga soo adeegato balse waxa ay la kulantay masaajid si weyn loogu cibaadaysanayo isla markaasina laga akhriyayo khudbadda Jimcaha maalintii dambe markii ay khudbadaasi ay si weyn ay u dhageysatay ayaa waxa ay ku samaysay nafteeda raadin aad u badan iyadoo markaasi khudbadaasi ay ku baxaysay luqadda afka Jarmalka gabadhii ayaa markii ay qisada ay maxaadiradaasi ay si xoog leh u dhageysatay ayaa waxa ay fahantay isla markaasina ay isbarbar dhigtay farqiga u dhaxeeya diinta Islaamka iyo diinta Kiristaanka balse waxa ay ogaatay diinta Islaamku inay tahay diinta ugu mudan isla markaasina ugu sharafta badan ilaahayna uu soo dejiyay dadka muslimiinta inay ku iibsadaan nolosha isla markaasina ay sharaf iyo meeqaam wanaagsan ay ku gaadhaan balse markii dambe ayaa waxa ay bilowday in ay markaasi ay nafteeda ay raadayso wacdigaasi ay dhageysatay balse markaasi may islaamin markii dambe ayaa waxa ay ku noqotay gurigeeda iyadoo markaasi laga dareemay in ay gabadhani isbedel badan uu markaasi nolosheeda uu ku yimi balse waxa loo hadiyeeyay oo hadiyad loogu keenay kitaab ku qoran luqadda afka Jarmalka markii ay akhriday kitaabkaasi ayaa waxa ay isweydiisay su'aalo badan isla markaasina waxa ay ogaatay in Alle lagu garan karo subxaanahu wa ta'ala abuurka cirka iyo dhulka iyo waliba wax kasta oo markaasi adduunyada uu keenay iyadoo markii hore taasi aaminsanayd ayaa waxa ay markaasi ay heshay su'aalo badan oo markii hore ay weyday cid uga jawaabta waxaanay ka heshay diinta Islaamka markii ay akhriday tafsiirka Quraanka oo ku qornayd luqadaasi qisadaasi oo aan ka soo xigtay telefishinka afka Carabiga ku baxay Al Jazeera ayaa waxa ay tahay qiso aad u runa balse markii dambe ayaa gabadhii waxa ay ku noqotay masaajidkii Jimcihii dambe waanay islaamtay iyadoo markaasi loo qabtay shahaadateynka gabadhii markii ay islaamtay ayaa islaamnimadeedii aad u wanaagsanaatay waxaanay islaam ahayd muddo 5 casho markii dambe ayaa waxa ay gashay safar isla markaasina waxa ay u safartay magaalada Berlin ee caasimadda dalka Jarmalka iyadoo markaasi jidka sii socota ayaa uu gaarigii u la gadoomay amaba se uu la dhacay waxaanay iyadoo markaasi halkaasi ku dhimatay waxaanay gabadhaasi ahayd gabadh uu Ilaahay la doonay qalbigeeda hanuun isla markaasina waxa ay markaasi noqotay gabadh aad u cajabisay dadkii muslimiinta ahaa ee waqtigaasi ku noolaa dalka Jarmalka qisadani ayaa waxaanu kala baxaynaa in haddii uu qofka uu Ilaahay qalbigiisa uu hanuun iyo hadaayad la doono ay markaasi uu noqonayo qof markaasi uu wax kastaba u fudaydiyo balse Islaamka ayaa si xoog leh ugu fidaya wadamada qaaradda Yurub si ka badan wadamada dhulka Islaamka iyagoo ay islaamayaan dad aad u badan kuwaasi oo wax taraya diinta Islaamka waa tahay daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa toddobaadkan barnaamijkeena qisooyinka oo aad kala socoteen barta aan YouTube-ka ku leeyahay ee Maxamed Turki Channel sidoo kale waxaad kala socotaan Facebook iyo WhatsApp-ka